ورحمة الله وبركاته. مركا لكو سو دواو كانالكا عفيفة وقسمة سعيدة وفرح سنة ودا joogno maanta marka waxaan rabaa inaan muuqaalkii daraati ah soo dhigay uu kana daba jooga waxa ugu muhiimsan waxay tahay rabaa inaan ka hadlo mise su'aasha muhiimka ah xagga ka soo baxda waxay ahayd maadaama aan ka hadlay saddex fikradood oo ahaa socialism iyo capitalism iyo communism oo sidoo kalena muuqaalka dhexdiisa aan ku sheegay in dawladdii Soviet-ka ay hadafkeedu ahaa inay abuurto bulsho ma aragtay communist ayaa su'aashu waxay tahay Soviet Union ma ku guuleysteen in ay abuuraan waddan mase dawlad mase bulsho communist ma ku guuleysteen oo communist hadafkiisa ma la gaaray haddana hal mar idin soo xasuusiyo waxaa dhahnay Karl Marx iyo Friedrich Engels waxay dhaheen dawladda communistaha ah waa mid wax kasta hantida dhan uu leeyahay dawladdu ay leedahay mase dadku ay leeyihiin ayagu wax state la yiraahdo horto agtooda kama jiro laakiin waxaa jiro state ay abuureen dadka ma aragtay shaqaalaha ah ay abuureen ayaa jiro working class ay abuureen ayaa jiro marka waxay leeyihiin state-kaas bulshada qaybta ugu hooseysa mase qaybta shaqaalaha ah ay abuurtay ayaa wax kasta leh taasoo micnaheeda leh wax kasta dadku waa isla leeyihiin wax la kala leeyahay ma jiro taasoo micnaheeda ah bulsho dabaqada ma jirto oo wuxuu hadafkoodu ahaa inay abuuraan bulsho oo bilaa dabaqad ah kala sareynaysan jir dabaqada hoose dabaqada dhexe dabaqada sare aysan jir hadafkaas ayuu ahaa wax state-ka la yiraahdo laga taqaluso oo ma aragtay bulsho la abuuro bulsho wax ka weyn yacni bah la abuuro community la abuuro oo fikradu ay noqoto in dadkaas wax wada lahaadaan communism-ka marka sidaas u ahaa marka su'aashu waxay tahay heerkeeda ma la gaaray intaan su'aasha ka jawaabin aan waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo oo ku saabsan qoladan ma aragtay Soviet-ka ku saabsan annaga fa ma lihin v ma lihin marka halkan waxaan ka wadaa v ma lihin halkan fa ka dhig qolada Soviet-ka ma aragtay wax ku saabsan Soviet-ka horta waxaa la aasaasay 1922 la aasaasay laakiin ka hor intaan ma aragtay la aasaasin dawladda USSR-ka intaan la aasaasin ka hor waddankan Russia la yiraahdo waxaa maamuli jiray ma aragtay qolo boqortooyo ah maamuli jirtay oo boqortooyadaas waxaa la dhihi jiray Tsar la dhihi jiray ninkii markii u dambeeyay Russia maamulayana waxaa la dhahayay Nicholas II ayaa la dhahayay marka taariikhda waxaa hal mar u fiirinaynaa Russia boqortooyada ka hor kadib marxaladihii ay martay Russia marka ka hadlayno 1917 ka hor 1917 ka hor Russia waxay ahayd boqortooyo boqortooyadana waxaa maamulaya boqortooyadii waxay ahayd oo Tsarka ninkii boqorka markaas ahaana wuxuu ahay ninkii la dhahayay Nicholas laba ayuu ahaa Nicholas laba maamulaya marka xilligaas Russia dadku waxay mareen yacni faqri badan jiray xasilooni darro badan jirtay dadka shaqaalaha ah mise dadka peasant-ga oo beeraleyda ah waxay marayeen nolol saayid u liidata ayay marayeen marka 1917 Russia waxaa ka dhacay wax la yiraahdo kacdoon ka dhacay oo la yiraahdo revolution ayaa ka dhacay waliba laba kacdoon dhacay mid dhacay bishii February iyo mid dhacay bishii October midkii dhacay midka February dhacay markaan u imaano waxaa la riday boqorkan oo Nicholas ayaa ma aragtay boqortooyadii xilka laga riday Nicholasna hawada laga saaray yacni Nicholas dhan waa la tuuray waxaa halkaas laga abuuray dawlad oo ku meel gaar ah la abuuray oo temporary ah kadib maxaa dhacay markii dawladda ku meel gaarka la abuuray Nicholasna hawada laga saaray October waxaa dhacay revolution labaad dhacay oo kan wuxuu noo yahay waa revolution-ka koowaad mase kacaanka koowaad revolution-ka labaad oo October dhacay waa midka labaad waa midka dawladdii ku meel gaarka ahaayoo la aasaasay looga taqalusi doono midkan marka waxaa hogaaminayay
ururkii la dhahayo Bolshevik ayaa hogaaminaya. Bolshevik marka waxay ahaayeen koox group ah oo siyaasadeed oo waxay ahaayeen communist ah. Ninka waxaa hogaaminaya marka la yiraahdo Lenin, ninka la dhahayo Vladimir Lenin ayaa hogaaminaya. Aan marka u imaano 1917 October kadib wixii dhacay 1917 October sidaa sheegnay ururka Bolshevik ma aragtay waxay sameeyeen inqilaab kala sameeyeen oo Vladimir Lenin uu hogaaminay. Waxay dadka u ballan qaadeen horto in nabad la helayo u ballan qaadeen. Waxay sidoo kale u ballan qaadeen in sinaan la helayo. Waxay sidoo kale u ballan qaadeen in dadka beeraleyda ah ay dhul helayaan. Yacni qodobadan muhiimka ay u ballan qaadeen. Dadka badankoodna sidaas ayay ku taageereen. 1917 isla 1918 marka la imaado waxa dhacay dagaal sokeeya wuxuu ka dhacay Russia. Dagaal sokeeya ka dhacay marka aan u imaano dagaalkan yaa dagaalayay xaaladdu siday ahayd 1918 dagaal wuxuu ka dhacay sokeeye Russia ka dhacay. Dagaalka marka wuxuu u dhaxeeyay laba qolo la yiraahdo ciidanka maaragtay Red Army-ga iyo qolo kale oo maaragtay la yiraahdo ciidanka cadaanka ah okay White Army ayuu dagaalku u dhaxeeyay. Labadan qolo ayaa maaragtay iska soo horjeeday. Labadan qolo oo qoladan maaragtay oo redka ah waxay ahaayeen communist ay ahaayeen okay qolada waxay ahaayeen rabtay in communist la noqdo halka qoladani ay rabtay in la soo celsho nidaamkii boqortooyadii in la soo celshay rabeen. Sidoo kale qolo badankooda waxay ahaayeen u badan capitalist u badan mise ma aragtay aan dhahno ganacsado u badan ayay ahaayeen. Qolo sidoo kale waxay ahaayeen oo liberal ah. Sidoo kale qolo waxay ahaayeen ugu weynba anti communist ay badankooda ahaayeen. Nidaamka communismka ay ka soo horjeedeen. Laakiin qoladaanu ayagu communist ay ahaayeen wayna isku duubnaayeen halka qoladani ay ahaayeen dad maaragtay saaid u kala firdhisan. Labadan qolo marka dagaalku ka dhaxay dagaalkan marka u dhaxeeyay 1918 u dhaxeeyay labadan qolo oo ma aragtay Red Army iyo White Army u dhaxeeyay ciidanka cad iyo ciidanka gaduudan u dhaxeeyay waa isla dagaalkaas marka ninka Lenin la dhahayo uu ku dhaawacmay. Lenin halkaan uu ku dhaawacmay ilaa 1924 uu dhinto. Dagaalkaana wuxuu socday ilaa 1922 ayuu socday. Kadib 1922 markuu dagaalku joogsaday waa marka la aasaasay ururka dawladda USSR يعني United Soviet كانوا United كانوا Soviet كانوا Socialist كانوا Republic يعني دولة بدن ومركز وحا كميد أهاي راشيا كازاخستان أوزبكستان كواسا مركز ما أركتي كوبلا ماي هل كان الأساس كون سجال بقول عتني لوادي الأساس السوفيت كأرجع سوفيت كمركز لا معنو كلية لو قدر راشكا أو حدهن مر كونسلو كيم هذا وكونسلو معناه هذا guddi ka kooban shaqaale shaqaale markaan ku dhaho dadka hoose shaqeeyada qaybta shaqeeyada guddi ka kooban macnaheedu waa macnaha kale uu leeyahay waa macno oo communist ah yacni kadib markii 1918 ilaa 1922 uu socday civil war mise dagaalka sokeeye uu socday waxay gashay Russia waqtigii la dhahaayay Stalinka oo xilliga Stalin maamulay. Xilligan marka waa 1924 ilaa 1953. Russia marka isbedel badan ku dhaca waqtigan waa waqtiga ugu badan ma aragtay Russia ee warshadaynta ay sameysay isbedelka warshadaha ay sameysay. isla xilligan waa markuu dhacay dagaalkii ma aragtay labaad ee adduunka. Dagaalkii labaad ee adduunka hal mar ayadana dhexgalo يعني dagaalkii labaad ee adduunka Russia waxay ka soo horjeeday Germany ayay ka soo horjeeday Germany iyo Russia waxay saxiixadeen heshiis la dhaho non-aggression pact ayay saxiixdeen يعني
heshiiskaani waxay saxiixdeen 1939 kaasoo ku saabsanaa inaysan qolada kala weerarin ayadoo diyaar ahayn laakiin nasiib xumo 1941 weliba waxaan u malaynaa 22 June Germany waxay weerar ku qaaday Russia ayay weerar ku qaaday yacni operationka loo yaqaan Barbarossa ayay weerar ku qaaday dagaalkaas marka Russia dad badan ay ku lumid oo lagu qiyaaso yacni 30 milyan miya adigu ugu yaraan 27 milyan oo qof waxay ku dhimatay dagaalkaas uga dhimatay Russia uga dhimatay tahlika weyn uu ahaa maxaa ku soo hara marka 1942 ayay Russia waxay sameysay falcelin sameysay oo ilaa markii dambe ay tagtay xitaa Berlin ay tagtay dhul badan ay qabsatay dagaalkii labaadna Russia saas ay ku guuleysatay 1945 waa ka odaygii ma aragtay Hitler ahaa oo isdhiibayo Russia marka dagaalka labaad saas ku soo dhaaftay muhiimadaas Russia dagaalka labaad ay lahayd waana waxa keenaba Cold War ka mise dagaalka qaboobaaba waxa keenay guushi Russia ay ka soo gaartay dagaalka labaad ay ka soo gaartaa keenay okay kadib waxa dhacay Russia awoodeedu saayidii u wanaagsan ideology-geedu saayidii u wanaagsan adduunka saameyn ku yeelanaysa laakiin 1981 miya ay waxay bilowday hoobadkii yacni cirifkeeda ugu sareeyay waxay gaartay dagaalkii labaad intuu socday markuu dagaalkii labaad dhamaaday yacni awoodda adduunka ku leedahay kadibna hoos ay bilowdeen oo soo dhacday ilaa markii dambe uu burburka uu ku yimaado su'aasheenii hore noocin Soviet-ka ma ku guuleysteen communist inay sameeyaan maya si fudud kumaysan guuleysan Soviet-ka markii laga hadlayo inay ku guuleysatay in kala badankoodu scholars mise aqoon-yahanada cilmigan ku takhasusay mise taariikhdan mise arrintan ku takhasusay waxay sheeganaysaa Russia aysan ku guuleysan inay waxaan ka wadaa Soviet-ka inaysan ku guuleysan inay aasaasaan dawlad communist iska daaya dabaqadihii ay isdhahayeen aan baabi'ino ma ahana dabaqada hor leh abuureen oo marka communistu dhahaydo bulsho waxaan abuureynaa oo ma aragtay classless ay dhahayso inay abuurtay iska daaya waxay abuureen dabaqado cusub ayay abuureen new class ay abuureen yacni sababta ay u dhacdaa waxay tahay Soviet-ka maxay ka koobnaa Soviet-ka dadka ma aragtay oo party officialska ahay oo haysta yacni xilalka ugu sare haysta waxay ahaayeen tabkay taagnaay meesha ugu sareysay ahaayeen yacni waa tab class ay ahaayeen kuwa waxa ku soo haray professionka fiican haysta shaqooyinka fiican haysta sida ma aragtay doctorada engineerada maxaa ku soo haray cilmi baarayaasha kale dadka hebelowga dadka xirfadahaas haysta professionka haystana waxay imaadeen ayaguna class kale abuureen dadka ugu hooseeya oo working class ka ahaana bartoodii ayay joogaan waxba uma hormarin sababtoo marka adigu ka shaqeydo warshad kabaha soo saarto marka ka shaqeydo oo aad qaabilsan tahay qaybta kaba baakadaynta aad qaabilsan tahay iyo marka dhakhtarta isku dhul in ma siinayo isku dhul ma lihidiin dhulka adii lagu siihay dhulka dhakhtarka la siihay isku mid ma dhakhtarka dhulku helayo iyo dadka madaxda dhulka ay helayaan isku mid ma taasaa marka waxay abuurtay 3 dabaqadood oo sii kala dadka inay dabaqado sii kala lahaadaan sidaas darteeda communist wadan dawlad bilaa dabaqad bulsho bilaa dabaqad maysan abuurin Soviet-ka maysan abuurin iska daaya dabaqado cusub ay abuurtay iska daaya waxa abuurmay yacni dad kala caburis kala abuurmay oo qoladaanu wixii ka soo daba hadlaba way caburinayeen intaas markii laga soo tago guulaha ay Soviet-ka sameysay waxa kamid ahaa inay ma aragtay ay hoos u dhigaan mise elimination ay ku sameeyaan hantidii ma aragtay oo private-ka ahay private ownership kidan hoos ay u dhigeen yacni way hoos ma u dhigeen ba hawaday ka saareen kulli wixii dhamaa waxa la wareegay party officialska la wareegay xaa ku soo haray faqrigu hoos u dhacay sidoo kale xaa ku soo haray equality-gu way badnaatay oo markaan ku dhahayo 3 dabaqadood abuurantay 3 dabaqadood sinaan la'aanta u dhaxaysa iyo sinaan la'aanta u dhaxaysa dabaqadaha Mareykanka mise wadamadii kale oo kapitalistaha isku mid ma ahayn kuwaana sinaan la'aantooda yareed marka culimadu waxay dhahaan inta badan ma aragtay barnaamijkan mawduucan ku takhasusay mise cilmi baarista badan ka sameeyay inta badan waxay sheegaan Soviet-ka muusan abuurin dawlad mise communist maysan gaarin laakiin waxay gaareen socialist ayay gaareen
waxay abuureen nidaam socialist ay abuur waatan daraas oo sheegan socialistigu hadafkiisa maxaa waay hantida qaar ka mid ah inay waliba ku waaweynka inay dawladdu maamusho state-ku maamulo in ma aragta la yareeyo sinaan la'aantaas in la yareeyo in waxyaabaha qaar oo suuqa yaalana dawladdu ay barayskooda mase sicirkooda ay maamusho laakiinse in la cirib tiro kalaas kalan mase dabaqadaran in la cirib tiro kamaysan mid ahayn socialist sidaas si la mid ah communistigu uu ku guuleysan waayo inuu midaas sameeyo soo marka waxaa la yiraahdaa Soviet-ka waxay soo gaareen heerka socialist ayay soo gaareen laakiin maysan soo gaarin communist maysan soo gaarin wali ala waan sugaynaa marka dawlad si dhammaystiran u sugto communist taasoo aan dhahayno adduunyada maanta jirta communistiga wuxuu ka yahay qayaal uga yacni communismka qayaal uga yahay wax si practical ah loo sameyn karo waa la isku dayay laakiin looma sameyn intaas ku saabsan yahay waa mahadsantihiin